dagaalka xooggan ee ka socda waqooyiga Itoobiya ayaa haatan waxa uu eegyahay inuu yahay dagaalkii ugu xoogganaa ee abid Itoobiya ka dhaca markaasi ama Afrika baa layidhi. waxaana haatan dhinacyada dagaalamaya qolo waliba ay sheegaysaa inay horumar ka sameeyeen dagaalka oo markaasi ay deegaano hor la qabsadeen oo markaa dhinaca kale ay gam ka dhigeen. haddii aynu ku horeyno haddaba dhinaca sheegashooyinka xukuumadda Itoobiya, ciidanka dowladdu waxay haatan sheeganayaan inay qabsadeen magaalada Shiraaro oo ku taala dhinaca waqooyi galbeed ee Tigray. waxaana haatan ay soo bandhigeen muuqaalo sawiraan ciidanka federaalka Itoobiya iyo ciidanka gaarka ah ee qoomiyadda Axmaarada oo hortaagan bangiga weyn ee magaalada Shiraaro, kaasi oo ku yaala bartamaha ama faras magaalada Shiraaro. waxaanay haatan sheeganayaan warbaahinta taageerta dowladdu inay gam ka dhigeen xoogagii TPLF ee ku sugnaa magaalada Shiraaro. dhinaca kale, ciidanka Eritrea ee lagu eedeynayay inay ka garab dagaalamayeen ciidanka dowladda ayaa sawiraantan ama muuqaalada lasoo bandhigay ee Shiraaro aan lagu arag, waxaanay taageerayaasha dowladdu leeyihiin wax ciidan Eritrea oo la socda ciidanka Itoobiya ma jiraan. xukuumadda Itoobiya ciidankooda ayaa xoreeyay ayay ku doodayaan, laakiin dadka taageera TPLF waxay ku doodayaan in ay ka dhuunteen sawirka si aanay indhaha beesha caalamka u arag, ay yidhaahdeen, oo aan caddayn looga helin ciidanka Eritrea inay ku jiraan dagaalka. dhinaca kale haddaba, ciidanka Itoobiya ayaa sida oo kale ku siqaya dhinaca magaalada Shire, laakiin xoogaga Tigray ayaa la sheegay inay gooyeen biriishkii weynaa ee loo marayay dhinaca magaalada Shire si aanay usoo gudbin ciidamada huwanta ah ee federaalka Itoobiya iyo Eritrea bay layidhi. laakiin biriishka ayaa isla imika la dayactiraya oo dib loo dhisayaa oo gacanta markaasi lagu hayaa. waxaa markaa dib u dhisaya haatan injineero la socda markaasi ciidanka dowladda Itoobiya. haddaba waxaa jira muuqaal uu soo duubay mid ka mid ah injineerada dhisaya biriishka, ayaa waxaa lagu arkayaa muuqaalkaasi dib u dhiska biriishka iyo dayactirka dhaqsaha ah ee ay wadaan markaasi xukuumadda Itoobiya ciidankooda iyo markaa injineeradooda. sida oo kale, si kadis ah waxaa muuqaalka uga soo muuqanaya qaar ka tirsan ciidanka Eritrea oo markaasi daba jooga goobta markaasi dhismahaas ka socdo. waxaana la sheegay markaa muuqaalkan inaan loogu talagelin, laakiinse si kadis ah ninka injineerka wax duubaya isagu hawlihiisan iyo waxqabadkan u duubaya, laakiin xagga alaabuhu yaalaan iyo markaasi xagga dambe ayay joogaan ciidanka Eritreaanka oo lagu arkay. waxaana la xaqiijiyay ama dadka taageera TPLF ay sheegayaan inay caddayn u tahay markaa inay joogaan ciidanka Eritrea. haddaba si kasta ha ahaatee, waxa dhinaca xoogaga TPLF ayaan iyagana eegaynaa. waxay iyagu sheeganayaan guulo waaweyn inay ka gaadheen dagaalka, iyagoo oo haatan sheeganaya inay qabsadeen magaalada Addis Arkay. waxaanay sida oo kale sheeganayaan warbaahinta TPLF-ta taageerta inay haatan ciidanka Tigraygu ku sii siqayaan dhinaca magaalada Dibak ee waqooyiga Gondar, taasoo haatan ay sheegeen in ay wax yar uga harsan tahay qabsashadeeda. dhinaca kale, TPLF waxa kale oo ay guulo ka sheeganayaan in ay sutida u qabteen ciidanka Eritrea iyo federaalka Itoobiya ee ku soo duulay magaalada Maqale, iyagoo markaa dhinaca deegaanka Birhale ka soo galay ee Canfarta. waxaana haddaba maantana ay soo bandhigeen, shalay muuqaalo ay soo bandhigeen iyo video TV-ga Tigrayga laga sii daayay wanay ku soo qaadanay barnaamij. maantana askar cusub oo markaa ay qabteen oo ay sheegeen in ciidankii Eritrea yihiin oo ay waraysi la yeelanayaan ayay warbaahintooda soo bandhigtay. dhalinyaro waxa isku jira markaa nin weyn iyo mid dhalinyara, labadaas waa Eritrean bay yidhaahdeen, markaa afkii Eritrea ayay ku hadlayaan. markaa muuqaal video ayay ka soo duubeen, waxaanay sheegeen markaa inay yihiin ciidanka Eritrea ee haatan ay dhinaca Birhale markaasi kaga soo duulay Tigrayga. waxaanay TPLF-tu haatan sheeganaysaa inay cagta marisay dhammaan guutooyinkii kasoo galay dhinaca Birhale. laakiin warbaahinta dhinaca dowladda Itoobiya taageerta waxay sheegayaan in weli lagu sii siqayo Maqale oo dhinaca Birhalena laga gelayo. dhinaca kale ee Abala ee Canfartana markaasi ay ciidanka Itoobiya ka soo gelayaan. inkasta oo dhinaca Abala
ay tahay markaasi dhulkii buuraleydaha istaraatiijiga ahaa oo dhan waxaa la yidhi TPLF baa gacanta ku haysa. marka ay isku dayaan xooga markaasi ciidanka Ethiopia inay hore u dhaqaaqaanba dee qoladii kale dhulka sare haysato oo markaasi iyaguna way ka hooseeyaan. taasina waxay sahlaysaa markaasi in dib loo celiyo oo markaasi dhaqaaqii iyo horumarkii ay sameyn lahaayeen baa ciidamada Ethiopia ama federaalku ee dhinaca Abala waxa hakiyay markaasi oo dib markaasi u joojiyay ciidankaasi TPLF ee dhulkaas sare ee Abala istaraatiijiga ee markaasi dhinaca Tigreega wali xigta ayay joogaan TPLF. marka wax horumar ah ama hore socod ah oo dhinaca Abala ay ka sameeyeen ma jirta baa la yidhi. laakiin dhinaca Birhale oo ah markaasi dhinaca xadka Canfarta iyo moogta Tigreega ee waliba dhinaca Eritrea xiga. marka gobolka Birhale Eritrea xad buu leeyahay, xagan kalena Tigreega xad buu leeyahay, waana Canfarta ayaa degta halkaasi oo dhulka istaraatiijiga ah ee markaasi buuraleyda ay gacanta ku haysay markaasi ama ku qabteen ciidanka dowladdu ayaa waxa ay sahashay marka in ay weeraraan xooga TPLF ee ku sugan markaasi Maqale. inkastoo Maqale ilaa ay haatan la qabsan oo marka aan wali loo soo dhawaanin, laakiinse waxay ku doodayaan warbaahinta taageerta dhinaca dowladda Ethiopia u janjeedha in ilaa 20 kilomitir loo jiro dagaalkuna ilaa ay haatan u socdo. laakiin dhinaca kale iyagu TPLF waxay sheegayaan in gebigoogiiba gam ka dhigeen guutooyinka dhan ee soo weeraray oo dib loogu celiyay Birhale bay leeyihiin. mana jirto ilaa khatar haatan ay ku jirto markaasi Maqale oo madaxdii hore waxaan u soo qaadanay inay ka yaaceen madaxdii TPLF Maqale oo warbaahinta dowladda isla dhexmarisay warkaasi. laakiin kuwa taageera TPLF haatan iyaguna waxay sheeganayaan inaanay jirin wax madaxdii Tigreega ama TPLF oo ka carartay Maqale oo haatan xitaa TV-gii dowladdu ka shaqeynaya Maqale bay yidhaahdeen. marka khatar ay haatan Maqale ku jirtaa ma jirta bay leeyihiin. waxay ku doodayaan inay iska caabin sameeyeen oo ay iska celiyeen dib soo riixeen xoogagii soo weeraray. haddaba si kasta ha ahaatee waxa haatan sida oo kale ay dagaaladu ka socdaan 4 jiho ee markaasi Tigreega ayaa dagaaladu ay ka holcayaan. waxaana ciidanka Ethiopia iyo markaa xukuumaddu ay wacad ku martay ilaa iyo intay kooxda TPLF gacanta ku soo dhigayaan inaanay dagaalkaasi la joojinaynin. kooxdan oo ay markaasi ku tilmaameen inay yihiin qaar qaswadayaal ama argagixisaha kolba siday ugu yeedhaan waxaan wacad ku mareen inay soo qabqabanayaan. laakiin TPLF iyaduna waxay wacad ku martay ilaa iyo markaasi inta ay naftu ku jirto inay istifaacayaan. waxaanu ku baaqay markaasi madaxweynaha Tigreegu in haatan weerarka lagu soo qaado yahay mid lagu isirtirayo buu yidhi. waxaanu dhammaan Tigreega ugu baaqay inay hubka qaataan istifaacaan. marka waxa weeyaan dagaalkani waa loo kala baxay ilaa ay haatan wax faragelin caalamiya oo dagaalkaasi lagu joojinayo timidna ma jirto. koox waliba waxay nin walba intii itaalkiisa ayuu haatan istifaacaya ama dagaalamaya. qolo walbana waxaa ka go'an mowqifkeeda inay gaadho. waa loo kala baxay waxaana la sheegayaa haatan inuu yahay dagaalkani dagaalkii lagu kala baxayay oo kii Rome baa la yidhi yumbar heerka usoo hadhaya. waxa weeye nin walba itaalkiisa meeshii uu dhigo ayuunbay noqonaysaa.